hay'adda SOS ayaa qabtay munaasabad lagu xuseeyay xuska maalinta carruurta adduunka oo sanad waliba laga xuso dunida. cabdiraxiin sheekh cali maxamed gudoomiyaha xiriirka ladinka ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka warramay xuska maalinta carruurta iyo doorka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay ka qaadatay. halkan waxaan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland injineer Qabbi. waxaan kaloo salaamayaa agaasimaha guud wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland Cabdirashiid aqoonyahan Cabdirashiid. anagu haddaan nahay xiriirkii Somaliland Judo Federation ama xiriirkii ladinka Somaliland haddaan nahay waxaanu halkan ugu mahad celinaynaa hay'adda SOS ee uu gudoomiye u yahay injineer Cumar Cismaan Miigel oo gudoomiye u yahay. run ahaantii waxaan halkan ka qiraynaa oo aan leenahay aad baad u mahadsantihiin xasuusta dheeraadka ah ee aad dhalinyarada iyo carruurta aad u sameynaysaan, soo jiidashada ubadka soo jiidaysaan, taakuleelaysaan, taageeraysaan. aad baad u mahadsantihiin. xasanaadkaana ilaahay xaggiisa aad ka heli doontaan insha allahu. aad baan ugu mahad celinayaa. halkan xiriirka iyo judogu waanu ka qayb qaadanay munaasabad kasta oo cinkana waanu taagannahay, xaadir baanu nahay. cumar cismaan miigane gudoomiyaha hay'adda SOS oo isla munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka warramay wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda ciyaaraha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sida ay uga qayb qaateen qabsoomidda munaasabadan lagu xuseeyay xuska maalinta carruurta adduunka. runtii Somaliland aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii markasta u foolan ama u heegan runtii inay ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta carruurta. hay'adda SOS oo runtii ka mid ah hay'adaha la shaqeeyana waxaanu sanadkan ku xusaynaa mar kale xarunta runtii muxuu ahaayey SOS Children's Village, halkaasoo ciyaaro kala duwan lagu qabtay tan iyo saaka subaxnimadii. ciyaarahaasoo tartanka beedka, tartanka joonyadaha, tartanka kubadda cagta oo imika dhici doona, iyo sidoo kale tartankii juudooga ama qalaamo rogodka, seerkastii, iyo runtii muxuu ahaayey tartanka soo bandhiga muxuu ahaayey talentka ama muxuu ahaayey hibooyinka oo runtii muxuu ahaayey lagu soo bandhigay. carruurtu waa mustaqbalka berri, runtii inay helaan mustaqbal fiican waxay u taalaa maanta madaxda joogta iyo mas-uuliyiinta runtii xilalka haya. sidaa darteed waxaanu ku baaqaynaa in carruurta runtii had iyo jeer laga shaqeeyo habkii iyo hanaankii horumarkooga ay u keeni lahaayeen. hay'adda SOSna waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee qayb uga tahay iyadii hay-adaha kale ee caalamiga ahba. gabagabadii munaasabadaasi lagu xuseeyay xuska maalinta carruurta adduunka ayaa halkaasi lagu soo bandhigay tartan ciyaareedyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen ciyaaraha kubadda cagta, orodka, legdinka, iyadoo halkaasina abaalmarino isugu jira bilado iyo koob lagu guddoonsiiyey kooxihii ku guulaystay tartan ciyaareedkii loo qabtay. xamse qurbaani.